من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أبواب إخراج الزكاة سكذا بحنتيده بابك كذي وهي باب المبادرة إن لو دقدقو أيو أباب يهي إلى إخراجها سكذا بحنتيده أي إلى إخراج الزكاة سكذا بحنتيده إن لو دقدقو ومركي واجبتي وقفكو إنو اسكب بحيه aanu u sii daynin in ay ku sii jiraan xoolihiisa. can cuqbata bni اlxaariث qaala sala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama nebigu wuxuu tukaday alcasra salaad casar ayuu tukaday faasraca wuu degdegay oo guryihiisa xaggoodii buu qabtay ثuma dakhala wuxuu galay albeyta gurigiisii falam yalbath kuma nagaanin amba kama sii nagaanin an kharaja inuu soo baxay markiiba intuu guriga galay ayuu dhaqso u soo baxay faqultu waxaan idhi oon anigu rasuulka ku yidhi salى اllahu عalayhi wasalama aw qiila lahu amba waxaa lagu yidhi waa shaki raawiga faqaala markaa rasuulku wuxuu yidhi ku jawaabay kuntu waxaan ahaa khallaftu kii kaga yimi amba dib ugu dhigay fi lbeyti guriga tibran dahab qaydhiin ayaan guriga dib ugu dhigay tibrigaasoo min asadaqati sekada ka mid ah fakarihtu waxaan karaahiyaystay ayuu yidhi rasuulku salى اllahu عalayhi wasalama an ubayitahu inaan ku habeeneeyo amba u hoydo gurigayga an ubayita inuu gurigayga aan ku habeeneeyo oo bimacnaa uu ku habeensado faqasamtuhu dabadeeto waan qaybiyey buu yihi rasuulku salى اllahu عalayhi wasalama salaada markuu ka baxay ayuu si degdega dadka u dhex maray saxaabadu waa ku yaabi jiray markaa rasuulku wuxuu yihi waxaan necbaystay in sadaqadaasi ay gurigayga u hoyato markaa si dhaqsa ah inaan dadkii lahaa ugu bixiyo oonu gaadhsiiyo rawaahu الbukhaarي waana xadiid صaxiixa weeye xadiidkan caaisha isagu waa ضaciif wa can caaishaةa qaala samictu rasuula الlahi sal ly slama yaquulu xaalu leeyahay maa khaaladat kuma milanto asadaqatu sadaqadu kuma milanto amba ma dhex gasho maalan xoolo qadu weligeed ilaa ahlakathu way baabiisaa oo sadaqadda haddii xoolaha loo daayo oo laga saari waayo sekadii maalku wuu ku halaagsamaya. xadiidka rawaahu الshaafiعي raximah اllahu taعaalى fii musnadihi wاlbukhaariyu fii taariikhihi wاlxumaydiyu fii musnadihi wasada wuxuu ku siyaadiyey xumaydi qaala inuu yakuun wuxuu ahaanayaa qad wajaba calayka inay ku waajibto yakuunu waxa ahaada qad wajaba calayk fii maalika inay ku waajibto maalkaaga sadaqatun oo falaa tukhrijuhaa dabadeeta aada bixin weydo oo fayuhlika dabadeeto uu halaago alxaraamu xaaraamtu ay halaagto alxalaala kii xalaasha ahaa laakiin aharkani xadiidka waa daciif weeye. waqad اxtaja waxaa deliishaday bihi xadiiskan man yaraa culamada kuwooda qaba tacaluqa الzakaa sekadu inay la xidhiidho ay ku xidhan tahay bilcayni xayeegta amba maalka xoolaha laftigooda
ee dimada inaanay ku xidhiidhin oo aanay ku xidhnayn. idan xadiidkaa hore saxiixa ah ayaa wuxuu daliil u yahay sekada in qofku dhaqso iskaga bixiyo oo markay waajibtaba dadkii xaqa u lahaa inuu siiyo ayaa waajib ah. xoolahaagana inay ku sii dhex jirto ma habboona, inaad adigu dib u iibsataana ma bannaana. sekadaad bixisay inaad dib u iibsato ay xeradaada ku soo noqoto amba khasnadaada uu dib u soo galo maalku wax ku wanaagsan isaguna ma aha. baabuma kii ayuu u baab yahay jaa ku soo arooray fii tacjiilihaa sekada bixinteeda in la dedejin karo oo la qadimi karo, bimacnaa sanadka soo socda sekada kugu waajibtay inaad sii bixin karto. waa hadday duruuftu keento oo kale, sida xaaladdan iminka aynu ku jiro ee abaaraha iyo dhibaatadan faraha badan, sicir bararkan iyo xanuunadan iyo waxani ay jiraan, qofku sanadka dambe iyo ka ku xigaba sekadiisa wuu sii bixin karaa. can caliyin ana alcabaas ibna cabdilmuطalib sa'ala wuxuu weydiiyey annabiya salى اllahu عalayhi wasalama, nebiga ayaa wuxuu su'aalay fii tacjiili sadaqatihi sekadiisa inuu qadimo amba uu horumariyo amba uu dedejiyo qabla an tuxila intaanay sugmin, ay qabla an tajib intaanay sugmin inuu bixiyo ayuu weydiiyey. farakhasa wuu u fasaxay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam lahu licabaas fii dalika tacjiilka amba dedejinta. rawaahu اlkhamsa ila النasaaئiya, waana xadiid xasana weeye. wa can abi hurayrata qaala bacaa wuxuu diray rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka alleh cumar ayuu u diray cala sadaqa sadaqadda soo ururinteeda, mas-uul buu uga dhigay oo soo ururi buu yidhi. faqiila dabadeeto rasuulka waxaa lagu yidhi salى اllahu عalayhi wasalama, manaca wuu diiday inuu sekadii bixiyo ibnu jamiilin, ninkii ina jamiil wuu diiday. wa khaalid bnu waliid, khaalidna wuu diiday. wa cabbaasna wuu diiday oo camu rasuuli illaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka alle adeerkiisa ah. warkaasi ayaa soo gaadhay rasuulka, warkuna sida loo sheegay ma wada aha. faqaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam, rasuulka ilaahay wuxuu yidhi, maa yanqimu umuu karaahiyeysan sekada bixinteeda, uma necbaysan ibnu jamiil ina jamiil wax kale umuu necbaysan ee wuxuu u necbaystay uun ilaa annahu kaana wuxuu ahaa faqiiran buu ahaa, sabool buu ahaan jiray. dabadeeto faaghnaahu اllah, ilaahay baa qaniyeeyey oo hodan ka dhigay. markaa saboolnimadii iyo wuxuu xasuusanaya mooyaane, ninkan isaga faqiirnimadii iyo caydhnimadiisii hore ayaa ugu wacan inuu maaragtay sekadii bixin waayo, sekada bixinteedana alla ugu mahadnaqi waayo. wa amaa khaalidun, khaalid isaga, fa inakum idinku tadlimuun waad dulmiyaysaan oo waad ka gardaran tihiin khaalidan, khaalid waad ka gardaran tihiin. waayo qad ixtabasa wuxuu u xanibayba adraacahu agabkiisa, waa wixii dagaalka lagu geli jiray. adraacahu agabkiisao dhan wuxuu u xanibay maya gaashaamadiisa iyo wa actaadahu qalabkiisaba fii sabiili اllaahi buu u xanibay oo u waqfay. markaa maalkan uu haystay ee qalabka ahaa ayaa waxay u qaateen inuu ganacsi u haysto oo dabadeeto dee seka ay ku waajibayso. isaguna wuxuu u haystay may ahayn inuu ka ganacsado inuu ilaahay diintiisa ku faafiyo kuna difaaca bay ahayd. marmarkaa ninkaa khaalid waa dulmiyaysaan buu yidhi, fa inakum tadlimuun waad ka daran tihiin khaalidan qad ixtabasa wuxuu u xanibay amba u waqfay adraacahu gaashaamadiisa iyo wa actaadahu qalabkiisaba fii sabiili اllah. wa ama alcabaasu cabaas miya, wa ama alcabaasu cabaas fa hiya sekada lagu leeyahay calaya, aniga ayay dushayda tahay, anaa bixinaya.
wa miluhaa mid la midana macahaa baan ku darayaayo waa laba jibaaraya uma qaala wuxuu yidhi nebigu yaa cumaru cumarow amaa shacarta miyaanad ogeyn anna cama rajuli ninka adeerkii anna cama rajuli ninka adeerkii sinwu abiihi aabbihii mataankiisa inuu yahay sinwu abiihi aabbihii mataankiisa inuu yahay miyaanad ogeyn rawaahu أحmed ومسلم وأkhrajahu الbukhaariyu walaysa fiihi fii xadiiث الbukhaarي dikru cumara cumar sheegitaankiisu kuma jirin walaa maa qiila lahu fi cabaas iyo wixii cabaas laga sheegay toona wa qaala fiihi laakiin waxaa ku sugan fahiya calayhi cabaas taa uu bixin waayey isaga dushiisa ayay tahay wa miluhaa sekada mid la mida in la midina macaha iyo in la midina dushiisay ahaanaysaa qaala abu cubaydin araa waxaan filayaa wallaahu aclame annahu rasuulku akhara canhu inuu dib uga dhigay asadaqata sadaqada caamayni 2 sannadood waa lixaajatin maslaxadan caradat lilcabaasi cabaas ku timi 2 sannadood dib in loogu kaadiyo oo la yidhaahdo dib sanakad baad bixin doontaa taasuu leeyahay sidaasaan u arkaa abu cubayd baa saale kitaabkiisa alamwaal walilimaami imaamkuna wuxuu xaq u leeyahay an yuakhira inuu dib ugu dhigi karo qofka sekada calaa wajhi nadar macnaa hadday sidaa keento maslaxaddu oo ijtihaad ahaan uma yaakhuduhu dabadeedna uu ka qaado waman rawaa kuwa ku wariyey fahiya calaya wa miluhaana fayuqaalu waxaa la odhanayaa kaana tasallafa minhu hore ayuu rasuulku uga qadintay sadaqata caamayn 2 sannadood sekadii uu bixin lahaa cabaas ayaa hore looga qadintay amba looga amaahday tasallafa minhu uu ka amaaday rasuulku sadaqata caamayni daalika alcaam sanadkaa uu diiday inuu bixiyo iyo waladii qablahu kii ka horreeyeyba horaa looga sii hayey waa haddii aada fasirayso riwaayadda odhanaysa fahiya calayhi wa miluhaa macahaa haddii kale rasuulkaabaa dib ugu dhigay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markaa maalka waqafkaa waxba laga bixin maayo qad ixtabasa duruucahu wa actaada actaad waa jamcu cataadin waa qalabka agabka wey waa qalabka dagaalka weeye alaat اlxarbi hadduu yahay hub hadduu yahay fardo iyo wixii la mid ahba isaga waa la dartiib ugu tabarucay ninkaa khaalid isaga iska daaya buu yidhi idan axaadiidan markaa waxaa loo deliishanayaa sekada in la qadimi karo oo la tacjiilin karo haddii ay maslaxaddu amba dantuba sidaa ay keento baabu tafriqati sakaa sekada in lagu qaybiyo oo lagu dhex firdhiyo ayuu u baab yahay fii beladiha magaalada laga qaaday dadka ku sugan amba waddanka iyo wa muraacaati اlmansuusi calayhi daliilku kuu ku soo arooray in la ilaaliyo seke weliba waxay ku baxaysa un in lagu bixiyo mansuusi calayhigu macnuu waxaa weeye xoolaha neefka caynkaasa ka bixi sekada caynkaasa daada caynkaasa almansuusu calayh lalqiima maaha in la bixinaya qiimaha neefka iyo wamaa yuqaalu kiibuu u baab yahay maxaa la odhanayaa oo loogu ducaynaya wamaa yuqaalu iyo waxa la odhanayo cinda dafciha qofku markuu bixinayo sekadii waxa loogu ducaynayo ayuu u baab yahay waa in qofka loo duceeyo sekada markuu bixinayo oo allaha ku naxariistaada iyo aalkaagaba in la yidhaahdo weeye can abi juxayfa qaala wuxuu ihi qadima calaynaa waxaa noo yimi musadiqu rasuuli illaahi salى اllahu عalayhi wasalama ninkii rasuulku uu soo dirayey sekada ururinayey musadiq haddii la yidhaahdo waa seke ururiyihii musadiqu rasuuli illaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka alleh kuwuu soo dirayee sekada ururinayey baa noo yimi faakhada wuxuu qaaday ninkaasi asadaqata sadaqadii buu ka qaaday sekadii min akhniyaa'ina kuwayagii hodanka ahaa ee xoolaha lahaa fajacalahaa wuxuu yeelay sadaqadii amba sekadii fii fuqaraa'ina kuwayaga saboolka ah kuwayagii hodanka ahaana uu ka qaaday kuwayagii saboolka ahaana dib buu ugu celiyey fakuntu waxaan ahaa buu yidhi xadiidkan waa daciif aan filayaaye hulaaman baan ahaa kuray baan ahaa
yatiiman agoon ah qulaamku markaa weli muu qaangaarin weeye faacdaanii wuxuu ii siiyey ninkii minhaa mina sekadii wuxuu iga siiyey qaluusan qaalin buu i siiyey qaalin geeluu i siiyey marka ilmaha yara carruurtaee saboolka in la siin karaad garanaysaa xadiiska tirmidi baa wariyey xadiis xasan uu ku tilmaamay laakiin xadiidku waa daciif weeye wa can cimraan bni xusaynin annahu istucmila waxaa mas-uul looga dhigay annahu istucmila waxaa laga shaqaaleeyey cala sadaqati sadaqada amba sekada soo ururinteedii falamaa rajaca markuu soo noqday qiila lahu waxaa lagu yidhi cimraan ayna almaalu maye xoolihii ayna almaalu fatxi laami bidamiya ayna almaalu xoolihii maye qaala wuxuu yidhi walilmaali arsaltanii oo ma xoolaad ii dirtay xoolahaan soo ururiyoon keeno miyaad la ii dirtay akhadnaahu waanu qaadnay xoolihii min xayثu kunaa na'khudhu halkaanu ka qaadi jiray calىa cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam wawadacnaahu waanu dhignay maalkii xayثu kunaa nadachu halkaanu dhigi jiray dadkaanu ka qaadi jiray baanu ka qaadnay wixii lagu bixin jirayna waanu ku bixinay maxay kale waxba kale de ma jiraan siduu un baanu yeelnay weeye xadiidka abu daawuud baa soo wariyey iyo ibnu maaja waana xadiis صaxiixa weeye can daawuusin qaala wuxuu uhi kaana waxa ahaa fii kitaabi mucaadin warqadii mucaad loo qoray waxaa ku sugnaa man kharaja qofka wax bixiya min mikhlaafin man kharaja qofka ka baxa min mikhlaafin degaan waa degaankaa la yidhaha mikhlaafku waa degaan weeye rustaaq bay yidhaahdaan maaragtay nimankan ciraaqiyiintu ay ku kala duwan yihin carabtu min mikhlaafin ilaa mikhlaafin degaan intuu ka baxo degaan kale u baxa faina sadaqatahu sadaqadiisa iyo wa cushrahu iyo beeraha wuxuu ka bixinaya sekada fii mikhlaafi cashiiratihi xigaalkiisa degaankooda ayuun baan lagu celinayaa rawaahu اlأhramu fii sunanihi waana ahar صaxiixa dee maalan abaara dhacaan amba hayaan dhaco amba dadku ay doolaan dadkii degaankii masaakiintii uu ka yimi joogtay ayuunbuu sekadii dib ugu celinayaa wey iyagun baa leh mikhlaafkuna waa nooca almikhlaafu cibaaraة can sacqin yashmalu buldaana kaiira makhaaliifna waa la yidhaahdaa haba degaanku siduu doona ha kala noqdo carabtuna luqa ahaan waa ay ku kala duwan yihiin oo ciraaqiyiintuna rustaaq iyo wax kale ayay yidhaahdaan wallaahu aclamu ayib rastaaq bay yidhaha ciraaqiyiintu rastaaq jamcigiisuna waa makhaaliif weeye oo maalan xooluhii sanadkan halkan iska joogeen abaara dhacay wuu hayaamay ama meel kaleu qabtay fuqaradii degaankuu ka yimi ayuunbuu sekadiina u celinayaa oo uu siinayaa wey mikhlaafkuna waa degaan oo macnuhu wuxuu noqonayaa man intaqala min baladi ilى baladi kana zakaaةu maalihi liأhli اlbaladi اladii intaqala minhu mahma kaana isaalu dalika ilayh xilligu doonaba ha soo gaadho degaankii buu celinaya وعن معاaذ بن جبل أن رasuuل اللhi صل سلم ضaciif weeye xadiidkani bacaثahu wuxuu u diray nebigu ilى اليمن xadiiskii kale صaxiixa baase jiray faqaala wuxuu yihi khud ilxaba qaad midhaha min alxabi midha ka qaad midhaha waa in midha lagu bixiyo washaata ka qaad neef adhiga min alghanami adhiga wاlbaciir mid geelana min alibili geele wاlbaqarata neefka loodana min albaqr waa jamc marka min albaqri albaqarata min albaqari maxaa lagu kala garanayaa farqiga bixadfi imika wاlbaqarata min albaqari taagaabta soo maaha amba ta marbuuda amba h waa la jaray soo maaha ka dambe waa jamc min ka kalena waa mfrad weeyi ayb rawaahu abu daawuud wbni maaja waana ضaciif ضaciif buu noqonayaa xadiidkani markaa sheekh wuxuu leeyahy wاljubraanaat saasaa idin qoran soo maha
والجبرانات كبدة وكبستة ونكو هدي نفكي دالك إلى سكدي كوا جبت مركز ويدا وينجي ندي لبا هلاد وحكوتنا يا لبا نف أريا أما وحكوتنا يا لا تندرهم وكبدوي سكدي بالله كبايا أما قف كلابا بحوالي بحنا يا هدي دادي لقى دونا ينفكو كيرادو هدو دادي لقى دونا يكوين هذا وحاول علينا إياه كيس كذا ورني وكبدة مركز والجبرانات كبستة المقدر لقو قدري في حديث أبي بكر إن صوم مرينا تدل وحين تصص على أن القيمة قيمة لقو بحي السكدة لا تشرع إن أنا الشرع أهين وأيو يدو أفرتر لقول لي هذا شنشر بحصه كبكا أيوم بعد قاضنا يسا يدو شنشر لقاتون أيو أفرتر هدي لقو أفرتر لقاتون يدو أفرتر لقاتون أيو هداد ويدو صدحجر أيسو أدقى كبايا marka hadii qiimo la qaadanayo waxa la oran lahaa farjirka qiimaheedii keen maxaanu saasu noqonaya amba shirka qiimihiisa uu bixi baa la oran lahaa idan waxa looga tagay qiimo kabitan la kabay neefkii la deey waayay waxay daliil u tahay inaan qiimo sakada lagu bixinin xoolo lacag aan lagu bixinin la tusra wa illa kanat hadii aanay sida ahayn waxay ahaan lahay tilka aljubranatu kabidahaasi أما مرنا قفك مالك اللي بحنا يوم مرنا كسكذا ورنا بحنا يا جبرانات عبثا عيار بين نقول لحي ومثلا بركي وإنك دي صوم الرحيث أبو بكر صوم معها وإنك كصوم مري هدي يدو لقاد دون يو شنشير أفرشير هاي صو أفرشير كبحي أو لبن يفو أريا كتر وكب صوم معها صوم لما كبين هدي أنا يقيم حالو رواي أفرشير قيمه هذا إسكبحي hadduu markuu yiraahdo afarjirkani geelayga kuma jiro shanjirkani geelayga kuma jiro afarjirkan bixinaya ta waxa la oran lahaa shanjirku noo qiime idan markaa marnaba qiime isaga la soo qaadi maayo xaqiisa loo kici maayo waa in la kaba marna kabka waxa bixinaya nin kale oo hadduu neef gudaadi ka yaraado hadduu daadi ka weynaadana waxa bixinaya kuwa sakada qaadanaya mafhuum wala la jubraanaadku waa noocaas weey la ma ila kanat tilka aljubranatu abathan عيار بيجيس كنقول لها الموت وعن أبي هريرة قال حديث وموضوع وهي حديث رواه بينبا موضوع حديث بماها وعن أبي هريرة أبو لقوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع بقى قال رسول الله إلا إلى بماها إذا عديتم هدي ليدي سيئة السكاة فلا تنسوا هيلو بنا ثوابها أبا القد كيدة ومحيا أن تقولوا إن التراهذان اللهم اجعلها إله يوكدق مغنما غنيمة ولا تجعلها إله يوكدق مغرما قان أم بالدين وموضوع بلدي موضوع ليلة هذا حديث ما أهبا حديث ما أهبا طيب وإنما العلة حديث والبختري فإنه عند ابن عساكر من طريق أخرى عنه فانتفت تهمة عن الوليد وسعيد وهو متهم بالكذب وعن عبد الله ابن أبي أوفى قال وحولي كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا وحو أهانجرا إذا أتاه هدي أكينان قوم قالوا بالصدقة سكه هدي أكينان قال وحو أرنجر رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله يوم صل عليهم إله يوم حريصا والله أرنكره شعار قارما اللهم صل عليه فأتاه أبي آبهي با أيمي وأكيني بورسكذي فأتاه أبي آبهي با رسولك أيمي أبو أوفاها بصدقته بو أليمي فقال النبي وحوري اللهم يا الله يا صلي إله يا أن حريص على آل أبي أوفاء أبي أوفاء إلكيس يرير كيس وإله يا أن حريص ومتفق عليه مركا قفك السكده مركو قفك سيو وإنه أدعيه isaga iyo aalkiisaba sidaas sunna rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka sugan waynu arki jiray dadkii hore markay siinayaan sakada ay yiraahdaan naga guddoon soo garanmaysid wadaad ma ahaan jirtay markay sabeenta sayaan shanshada ay qaban jireen Soomaa shashadaas uu qabanaya wadaadku lagu guddoomaya dabadata uu ducaynaya waka ma ogtahay iyadoo ciid dabarka laga shubana waan arki jiray wallahu a'lam adigu qofku markuu sakada bixiyo laakiin inay sakata hay shardi maaha inaad u sheegto
qofka sakada siinayso adigu ba sakadana inama alacmaalu binniyat wa inama likulli imri'in ma nawa adigu maalkaagii baad iska bixinaysa sakadii markaad u siiso qofku waa uu ku ducaynay laakiin bishardi maaha oo lagu odhan maayo qofka haddaanad u sheegin inay sakad tahay sakadu kaama ansixin la odhan maayo xataa haddaanad u sheegin way ka ansaxaysaa way ansaxaysaa insha allah insha allahu tacaala markaa dadka u ducey ha iska qaadanuune waana ducayso weeye ilaa mar kastaba waxbaa lagu siiyey soo maaha haddaad ogaatay inay seke tahayna waa sax oo dadkii xaqa u lahaa aad tahay weeye baabu man buu u baab yahay xukunkiisu muxuu noqonayaa sekadu ma ka ansaxaysaa dafaca siiyey sadaqatahu sadaqadiisii amba sekadiisii siiyey ilaa man qof u dhiibay dannahu uu u malaynayey min ahlihaa dadkii sekada ehelka u ahaa inuu yahay dabadeed fabaana ay caddaatay qaniyan inuu qof taajiraba uu haaba sekadii baad siri bixi nin maalqabeenaa baad siisayba waad khaldantay sax weeye idan markaa sekadii u khaldamay oo fabaana ay u caddaatay qaniyan guddoomiyuusaa u sheegay wey can abi hurayrata can rasuuli illaahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala qaala rajulu nin baa wuxuu yihi laatasadaqanna wuu dhaartay markaa ila mar hadduu dhaartay waajib bay noqonaysaa seke ka sadaqad kastoo waajibina noocan ay tahay amba seke ha noqoto amba nadarkii ha noqoto amba kafaaraba ha noqotee laatasadaqanna wallaahi laatasadaqanna waan sadaqadaysan doonaa oo waan sadaqadaysan doonaa buu yihi bisadaqatin baan bixin doonaa alle ayaan ku dhaartay caawa fakharaja wuu baxay bisadaqatihi buu la baxay waa habeennimo fawadacahaa wuxuu dhigay oo u siiyey u dhiibay fii yadi saariqin mid tuugay gacantiisa ku dhacday fawadacahaa wuxuu dhigay fii yadi saariqin tuug gacantii tuug buu gacanta u geliyeyba xadhka goysa dawadeetoo ilan lacag badan baa la siiyeye waagu markuu beriyey ma isagii baa warramay ma dadkii baa ogaaday wallaahu aclam faasbaxuu waxay ahaadeen inay waa beriisteen yataxadauuna inay ku sheekaysanayaan dadkii tusadiqa waxa xalay lagu sadaqadaystay tusadiqa oo majhuul buu ku dhisan yahay waxa sake la siiyey amba sadaqad la siiyey calaa saariqin tuug isna wuu maqlay ninkii lahaa xalata miskiin waxsii ayaaba tuug xadhka goysi siiyey muu khalkhalin qof wanaagsan weeye faqaala wuxuu uhi allaahumma yaa allahayow laka alxamdu adiga ayaa mahad ku leh calaa saariqin siintaan tuuggaa wax siiyey ilaahayow adigaa mahad ku leh waan ku celinaya isagu wuxuu isleeyahay wallaahi bahashii lamaad helin laatasadaqanna waan ku sadaqadaysan doonaayo waan ku sadaqadaysan doonaa laatasadaqanna waxaan bixin doonaa bisadaqatin baan bixin doonaa fakharaja haddana wuu la baxay bisadaqatihi fawadacahaa wuxuu dhigay rag ba iskaga carar buu is yidhi dumarka sii fawadacahaa wuxuu dhigay calىa yadi zaaniyatin mid xun naag xun ayuu gacanta u geliyeyba naag xun buu gacanta u geliyey rag ba ka carar bis faqaala wuxuu yihi calىa zaaniyatin markaasaa fatuxudi faasbaxuu yataxadauun dabeed dadku waxay ku sheekaysteen tusadiqa leyla xalayta waxa sadaqadii la siiyey calىa zaaniyati mid xun faqaala wuxu uhi allahuma laka alxamdu ilaahay oo adigaa mahadda kule calىa zaaniyati mid xun haddaan sadaqadaydii siiyey faqaala haddana wuxuu yihi laatasadaqanna wallaahi waan ku sadaqadaysan doonaa bisadaqati baan bixin doonaa haddana fakharaja wuu baxay bisadaqati habeennimo uu la gudaya fawadacahaa wuxuu dhigay calىa yadi ghaniyin mid hodana mid taajiruu gacanta u geliyey faasbaxuu yataxadauun haddana wuxuu kuwaa berisayn tusadiqa calىa ghaniyin mid taajira xalata la siiyey bahashii sadaqadii qaala wuxuu yihi faqaala wuxuu ihi allaahuma yaa allahayow laka alxamdu ilaahayow adigaa mahad kule calىa zaaniyatin naag xun inaan siiyey wa calىa saariqin tuug wa calىa qaniyin mid taajira ilaahay malag buu u soo diray waa loo sheegay fautiya waa loo yimi faqiila lahu waxaa lagu yidhi
أما صدقتك صدقتي أما صدقتك صدقتي بحيث سدد هابين إيه إسكوحيقا فقد قبلت والله أقبلي صدقتي بحيث سدد هابين إيه إسكوحيقا والله أقبلي فأما الزانية هوين ذي حمين فلعلها على جيابا تستعف إن يكون ورثتي به صدقتي سيست مسيناها بأسكي قديسي إلا مشكلة شركة ذي كجن عساني سيو حبي كل هذين سواحن مؤكتي ودي وحي مارتين نحن بيه مركا ويسكي ديسي بلا هيدي ودوات واحد دوري سيبويه شو بلاش بيكوي شيء يضل الله دبين على صارهم مار تيبا كدورس فلعلها تستعف إن كل ورثة تعمي به من زناها ولعل السارق توقن وحو مدنيا أن يستعف إنه كجن ورثة به عن سرقته توقديبا وهدو حلي اسكبد ايو يسجل في خطر كوغل يدي موقت ولعل الغنيه غنينا وحو مدنيا ان يعتبر ان يسجل في سوء عبرقات او فينفق او وحكبخيو مما كي وحكم اذا اتاه الله عز وجل اسلو استريمه ويقول والله وحو الله بخيا شوحا isaguna uu ku daydo uu bixiyo intuba khasaare ma yeelan habeenkiiba tuugiiba laga nastay ummadda way ka nasatay inuu tuugadii iskaga badaayayna waa dhacdaa si xadiisku tilmaamayo tii kale baadayna dee iyada laftigeedu way iska diisay ma ogti way ka raysatay kuyugii bay ka raysatay dayib markaa sadaqadu haddii sakadii aad lahayd bixii ay kaaga dhacday gacanta qof kale dhibaato ma laha xataa waa tii dhacday dee saxaabigu intuu sakadiisii soo qaaday sadaqadiisii uu inakiisii hordhigay inakiisii uu la soo qaaday inakiisii istawduubanoo meel iska hurda ayuunbu hoosta u geliyey xadiiskaasay kaga sii caddayba odaygu wuxuu ogaaday ninkuu sadaqad siiyeyba inuu inakiisii yahay aanu isagii waar siibnu kuma talagelayna ii celi xolaahay keen wallay kaa tahay buuri ilaahay baa iga kaa siiyey waa kuwii rasuulka isula tegey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh rasuulku wahii laga qaadi maayo baabu baraa'ati rabbi lmaali ay maalik lmaal baa loo jeeda rabbiga waxa buray ha u qaadani baabu baraa'ati rabbi lmaali ka xoolaha lihi inuu beri noqonayo ayay u baab tahay baabkeeda uu yahay uu maxay ka beri noqonayo bidafci siinta amba dhiibidda u dhiibay sakadiisa ila suldaan ninka madaxda ah maca alcadli hadduu cadaalad leeyahay iyo waljawri iyo mid aan cadaalad lahaynba hadduu yahay ila dowla islaam waxa dadka muslimiinta waxa la yaqaanay dadowga mas-uuliyiinta xukuma ayaa sekada cidi duran jiray oo soo ururin jiray xilliyadii dambe dad badan baa leexday dee madaxdii muslimiinta ka mid ah oo jawr iyo cadaalad darro iyo caqaa'id munxarifa qaarkood ayaa yeeshay idan markii hadday adiga ku yimaadaan dowladdii muslimka ah ay ku timaado sekadii qaado oo adigu aad sekadii u dhiibto cadaalad amba ha lahaadaan amba yaanay lahaanine adiga sekadii way kaa baxaysaa wey mafhuum wala la sekadii way kaa baxaysaa bara aad helaysaa maxay kale wa annahu idaa dulima sidoo kale haddii la dulmiyo bisiyaadatin wax dheeraada haddii lagu dulmiyana lam yaxtasib amba lam yuxtasab bihi can shay lagu xisaabinaya ma jiro marka inta dulmigaana adigu siyaadadii ha bixini wey can anasin ana rajula nin ayaa qaala lirasuuli illaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi idaa addaytu haddaan bixiyo azakaata haddaan bixiyo oon siiyo ilaa rasuulika ciddaadii soo dirtay rasuulkana waa ergey ee ha ku salliin nebiga ha u qaadan rasuul wax kastoo rasuul la yidhahdo nebigeed hamoodin ma ogtahay idaa addayta haddaan sii u dhiibo azakaata sakadii ilaa rasuulika kaad ii soo dirtay weeye kaad ii soo dirtay faqad bari'tu minha ma ka beri noqonayaa ila allaahi alle xaggiisa iyo wa rasuulihi ma u beri noqonaya oo xaqiisaa rama iga dhacaya qaala rasuulku wuxu uhi nacam ha idaa addayta haddaad u dhiibto ilaa rasuuli kaan kuu soo diray faqad bari'ta minhaa adigu waad ka beri noqotay ila allaahi alle xaggiisa aad u beri noqotay iyo wa rasuulihi falaka ajruhaa baad leedahay wa ihmuhaa dembigeeduna wuxuu saaran yahay calaa man badelahaa cidda doorisa ciddii sekada kaa soo qaatay neefkaagii hadday neef kale ku bedesho ama mid ka liitaba ay ku bedesho adigu dembi kuma lihid eed kuma lihid
idan adigu sekadii haddaad iska bixiso oo ciddii loo wakiishay dowladda muslimadda ay u wakiilatay aada siiso halkaa hadduu ku baktiyo adigu mas-uuliyaddeeda malihid ma saara laakiin neefkaad sekada u soo joojisay intaanad masaakiintii siinin hadduu xeradaada ku baktiyo dib uun baa lagugu yeelanayaa adigi maanta oo kale sekada la bixinayaa maxay noqonaysaa ilan xoolaha imika xoolo daaqaaba maba jiraanba wax ilaahay maaragtay dadka waa la quudinaya sanadka in ka badan baad moodaaba xoolihii in la masruufayo wallaahu aclam laakiin waxa uu hayuun bay sekada ka bixinayaan weydaa u haya unde muxuu hayaa 40 hadday joogsanayaan taa uu joogsanaya unbaa lagu lii wax laguma laha iisoo iibi noqon maysante iisoo iibi noqon mayso wallahu aclam ma muujiba وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللي قال وحيولي إنها ستكون وحدعي دونه بعدي أنيق الضبضي وحيمان وحدعي دونته أثرة كالبرصش وحبا ليس سين وايو حقا لكالبرصده وحقوق ليس سين وايو أثر وبرصشة هبل باكا برصده هبل كلوي أثرة بايمان دونته kala bursasha iman doonta xuqii laysisiin waayo la isku lahaa wa umuurun arrimo kale ayaa iman doona tunkiruunaha aada garan waayi doontaan waxaydaan garanaynin baa iman doona oo dhici doona waxa kala bursasha iman doonta nimanka idin xukumaya weeye ayay idinkaga iman doontaa weeye qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow famaa ta'murunaa maxaadna amraysaa arrintaasi markay dhacdo ee ay timaado qaala wuxuu yihi ta'uduuna idinku waad gudanaysaan alxaqa xaqa waa gudan doontaan aladii calaykum idinka idinku waajibay aladii xaqa calaykum korkiina ah watas'aluuna allaha allana waxaad weydiisan doontaan aladii xaqa lakum idinku aada leedihiin wixiinana alla weydiista inuu idinka siiyo amba idin siiyo xaqa idinku laydinku leeyahayna idinku guta muttafaqun calayh idan maalan qof xaq kugu leh adiguna xaq aad ku leedahay haddii uu xaqiisa kuu gudan waayo adiguna ha odhanin anna ma gudanayo xaqa laygu leeyahay waa in adigu waajibka ku saaran aad ka soo baxdo ka kale waajibka saaranna isaga ayaa ku dhib qaba weeye وعن وائل بن حجر قال وحولي سمعت وحن مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال بان مغلي رجل يسأله رسولك ويدين يسؤال فقال أوليهي أرأيت بل إيقا ور النبي إن كان علينا أنك هدي مدحنا نغضان أمراء لمن مدحي كواسو يمنعونا نوديدية حقنا حق يغا نوديدية وحانو حق أولهين ويسألونا نويدي سنية حقهم حق أي نقول ليهين محانو يلابون فقال رسولك وحري اسمعوا مغلا واضيعوه قان سمع فإنما عليهم أيغا دشودا وحسارن واجبكوا ما حملوا وحي لغو كلفي إلا صاري وعليكم إذن كان واجب إذنكوا ما حملتم وحي لذكوا واجبين رواه مسلم والترمذي وصححه إذن مركا مالكي سكدي هداد أدوغو بحصايو أي كاقادي حتى هداد سليدي والله نمان كان سكدا أورنيا مجارسين أيان dadkii xaqa u lahaa haddaad istidhaahdo mas-uuliyadna ciddaadee ku maamushaa ay qaadatay adiga sekadaasi way kaa baxday xadiidka kale waa daciif isagu وعن بشير بن الخصاصية قال وحلي قلنا يا رسول الله إن قوما رج من أصحاب الصدقة رجل سكدا أرورية كمذي يعتدون علينا وين وحد قدبان xadgudub bay nagu sameeyaanoo xoolaha iyagaasay ka xushaanoo kii ay doonaan bay qaataan macnuu saasoo kale u noqonaya afa naktumu ma qarinaa min amwaalinaa xoolaha iyaga wax ka mida ma ka qarinaa biqadri maa yactaduuna calayna intay nagu xadgudbayaan wax u dhigma oo xoolaha iyaga qayb ka mida ma u diidnaayo ma u sheegi weynaana faqaala wuxu uhi la may waxba ha qarinina rawaahu abu daawuud waase xadiidku daciif weeye ضعيف النقونية إلى سكدا حولها إلى سكينية محيو قبسنا يا الله وحوح الله إلى هذا المال ظاهر
almaal الظaahir mid waa xoolaha muuqda waa adhigii foofayey geelii lodii adhi beerihii waxyaabaha la arkayo o dhan waxna waxaa jira almaal الbaaطin waxna waxaa la yidhaha xoolaha qarsoon oo waxaa jeebka kugu jira amba sanduuqa amba dee joogaga amba akawntiyada waxaa kugu jira maalkaa dee la arkayo isaga waa la tirinaya waa la ogaanayaa beeri waa la qiyaasayaa laakiin maalka ku jira xisaabaadkaaga qofka lagu faragelin maayo almaal الbaaطin inta uu qofku sheego isagiiyo allihii adoo 100,000 haysta haddaad tidhaahdo 10,000 baan haysta lagu odhan maayo way ka badneed bahashu ma ogtay baabu amri saaci ninkan sekada soo ururinaya farid la faray saaci waa seke soo ururiyaha baabu amri saaci kan sekada soo ururinaya amrid la amray buu u baab yahay an yacudda inuu tiriyo almaashiyata xoolaha inuu ku tiriyo xayثu taridu اlmaa halkay biyaha kaga soo aroorto markay soo arooraan xayثu taridu اlmaaa markay soo arooraan oo waxaa kaloo la amraya walaa yukalifuhum inaanu ku kalifin dadka xashdaha soo ururinteeda inuu xashdaha soo ururinteeda ileyh xaggiisa inay u soo ururiyaan intuu iska dago gaaroodi maaha inuu yidhaahdo xoolaha soo ururiya halkan aan ku tirsanaya lama ogola hadday jilaal tahay amba ay xagaa tahay bartaa u ka cabayaan ceelkuu ku tirinayaa haddii kale barwaaqo tahayna beeshuu dhex tegaya halkaasubuu xoolaha ku urursana dhex tegaya isagu moogta can cabdillaahi bni camri ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaal rasuulku waxa uu yidhi tu'khadu waxa lagu qaadayaa sadaqaat اlmuslimiina muslimiinta sekadooda calىa miyaahihim biyahooda iyo ceelasha dushooda halkaa ay ka cabayaan unbaa lagu qaadaya wa fii riwaaya rawahu axmed wafii riwaayati liaxmeda wa abi daawuuda laa jalaba soo ururini may ahaanin soo duubid jalabka waxaa la yidhaahdaa inta xoolaha lasoo ururiyo in loo keeno kii walaa janaba iyo dhinac keenid jalab oo isla macno dhow yihiine janabka waxaa la yidhaahdaa meel fog buu iska degayaayo markaasuu odhanayaa ii soo kaxeeyo ila soo sima asalka jalabka waxaa la odhan jiray marka fardaha la tartansiinayo ay labada nin tartamayaane midkoodba faras saaran yahay mid baa janabkaa la ujeedaa mid baa wuxuu istaba dhigi jiray faras markaa labada faras markay isbarbar ordaan ay muddo baratamaan ayaa kii daalay ee muddada ordayey intuu ka deguu kan daba ordayen cidi saareen intuu koro ayuu dhaafi jiray si uu helo tartanka markaa taasaa la diidana walaa janaba mana jirto xoolaha ii keena meel fog igu keena moogta jalab iyo janab waa keenid labadu isku macno dhow yihiin walaa tuukhadu la qaadi maayo sadaqaatuhum sekadoodana laguma qaadayo ilaa fii diyaarihim guryahooda mooyaane guryahoodun baa sekada laga ururinaya lagaga guddoomaya waa haddii la helo dee dowlad sekada qaadata weeye dowladdoona taajirto cashuur iyo waxaan sharci ahayn bay ku maaraysataa soo maa baabu simati اlimaami imaamku inuu sunto uu sumadu sameeyaa buu u baab yahay almawaashi xoolaha sekada ah idaa tanawacat hadday noocya noqdaan cindahu agtiisa noocya maxaa loo jeedaa waa haddii seko iyo jisyo ay isku jiraan gaalada masala islaamku markuu xoog lahaa ee gaalada qaybo ka midii dee ay muslimiinta la noolaayeen ee la ilaalin jiray amba la geli jiray jizye waxaa la yidhaha madax furashay bixin jireen xoola ahaan markaa si loo kala duwo sekada iyo jizyada cumar baa maamul idaari uu sameeyey si aanay isugu khaldamin buu wuxuu kala calaamadiyey xoolaha sekada ah iyo kuwii jizyadaha buu kala calaamadin jiray idan xoolaha waa la sunti karaa weeye laakiin lama ogolo xoolaha in laga sunto wejiga inagu intan oo dhan baynu ka sumadnaa adigu arigay sheegaan in dhegaa dabadooda laga sunti karo laakiin geela waa in jeenyaha iyo boodyaha iyo xaggaa laga suntaa ma og tahay laakiin bilahan iyo canjiidda iyo shumayaasha iyo noocyadaa dee miima waxaan dee aynu wejiga maaragtay mamnuuc weeye xoolaha laga sunti maayo waa inaan laga sunti weyn can anasin qaala kadowtu waxaan ku kallahay buu yihi ilaa rasuuli illaahi salى اllahu alayhi wasalam waxaan la kalaahay aan u keenay bicabdillaahi bni abi طalxa oo dhashay cabdillaahi bni abi طalxa ayaan kula kallahay liyuxanikahu si uu rasuulku dhan xanaga timir ugu dhajiyo liyuxanika alxanak
inagoo waxaynu idhaha dhanxanaga mise dhanxaraga dhanxanaga weeye ilmaha yari markuu dhasho ayaa timirta in yaroo jilicsan oo nadiifa ayaa halkaa dhanxanagaa loogu dhajiyaa markaa uu iska leefleefaya macaankaa waa iska uun saadaal wanaagsan dabeecad wanaagsan iyo diin wanaagsan iyo dhanxanagaa loo siinaya ma ogta soomaaligu mowji faruhu dhuxunkureeb ugu burburinaya si uu fara laga qaad u noqdo dhuxunkureeb ha ku qaniino markaa dhacda wakaa kugu haya dee khaatigaynu ka joogno ma ogta timirtaasa dhexaliyo xanikahu si uu maaragtay dhanxanaga ugu dhajiyo timir ayaan u keena liyuxanikahu dhanxanaga fawaafaytuhu rasuulkiibaa waxaan la kulmay fii yadihi isagoo gacantiisa uu ku jiro almiisam madanuhu waa madanahan wax lagu sunto waa madane almiisam madanahan wax lagu sunto isagoo rasuulku gacanta ku haya yasimu rasuulku wuxuu ku suntayey ibila sadaqa geelii sekadahaa buu ku suntayey akhrajaah waa bukhaari iyo muslim waliaxmed ibni maaja dakaltu calى nabiyi sal ه alay slama ayaan u galay wahuwa yasimu isagoo rasuulku ka suntaya khanaman ari fii aadaanihaa dhegaheeda dhega waa laga sunti karaa laakiin xaggan wejiga aan laga sunti karin ma og tahay xaggan wejiga dhagahaase waa laga suntayaa fii aadaaniha wa can sayd bni aslama can abiihi annahu qaala licumara wuxuu ku yidhi ina fi dahri geela waxaa ku jirta naaqatan ina naaqatan hal camyaa indhala ayaa fi dahri geelan ka mid ah habeenay le way indhalaadahay faqaala wuxuu yidhi amin nacami sadaqa ma waxay ka mid tahay geela sadaqada nacam waa geela amin nacami sadaqa ma geela sekada ayay ka mid tahay am min nacami اljizya mise geela gaaladu waa isku furtee madax furashada ah jizyada ah qaala aslam wuxuu uhi min nacami اljizya maya geela jizyada ah ayay ka mid tahay wa qaala wuxu uhi ina calayha waxaa ku yaala miisam aljizya madanihii geela jizyada ah u kala duway markaa cumar sekada iyo ka kale saa isu dhexgelin ilaa kuwana dad gaara qaadan kara kuwana dad gaara qaadan waa idaari waa maamul yaqaan cumar maaragta rawaahu shaafiعي waana mawquuf bisanadi صaxiix ayaamu صaxaabana sidaasaa la samayn jira وsubxaanaka اllahuma bxamdika وashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka وatuubu ilayk